بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo soo keenay munaasabadan. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan saxiixo sharcigan maamulka dakhliga, waxaana hubaa inuu yahay mid dalka iyo dadkaba anfacaya waqtigan muhiimka u ah isbeddelka iyo horumarka dhaqaalaha dalkeena. waxaan mahad u soo jeedinayaa guud ahaan guddoonka labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa. waxaana mahad gaar ah aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka oo waqti dheer geliyey sidii looga gungaari lahaa in sharcigan uu meel maro. waxaa kaloo mahad aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee aqalka sare oo muddo kooban ku soo dhammaystiray hawshii kaga aadanaa meelmarinta sharcigan. sharcigani wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga, waana sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga. waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuuraha iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha. wuxuu kaloo caddeynayaa ama xaqiijinayaa xuquuqda canshuur qaadaha iyo canshuur bixiyaha iyo arrimaha la xiriira farsamooyinka lagu qaaday canshuuraha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharcigan inuu soo maray wada tashi buuxa oo ay ka qayb qaateen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. dowladda waxaa ka go-an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadka u baahan yihiin, ay ugu horeeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dibdhiska dalka. waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna uu deynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay-adaha maaliyadda ee adduunka, kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan. waxaan rajaynayaa in sharcigan lagu dhaqmo sida uu farayo lana fuliyo sida waafaqsan dastuurkeenna. assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.